بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم waxaan noogu horeyn doonaa hadduu alla inuu kelimad soo jeedin doona nabadoon Cusmaan Cigaal waan rabnaa hadduu alla inuu dadkana ku soo dhaweeyo kadibna hadduu alla kalimaadkii ugu soo talagalay reer Puntland oo halkan kula qaybsado nabadoon Cusmaan Cigaal soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم واحد وانا ورمايو waxaan taarahay muuqfiga ku aadan sita waxa loo qabtay inaan yar ka iftiimiyo horta markii hore waxaan salaamayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee shirkaas soo aabushay waa salaamaya waxaan kaloo salaamayaa bahda miidiyaha Soomaaliyeed oo shirkan hadda caawa ka soo qabshay ayagana waa salaamaya waxaan kaloo salaamayaa dhalinyarada iyo odayaasha intaba inta ka soo qabshay shirka waa salaamaya ayagana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamka bacdi shirkan waxa loo qabtay taageero ku aadan buufka 4.5 Soomaaliya maantay ay qaadatay baan ku taageeraynaa shirkan saas loo qabtay si ay aragtaan oo tabeelaha hadda meesha ku qoran annagoo marka taliyada Puntland dadka shucuubaha degan Puntland ka mid ah waxaanu taageernay 4.5 baanu qaadanay oo dawladda Soomaaliyeed ee federaalka hadda dhisan baanu waxaanu ku ayeedinaa Soomaaliyeed markay isu timid oo tashatay 4.5 حل بالقدي سوماليا واحد هذا السنة إلى سكبر بري سوماليا تشري بدل بسوبري دولة الملجارة سوبري فدرال بسوبري أو 4.5 كل سنة أيها حل بالقدي ولا يوجد بدل لكن هذا ما تي 2016 دولة المصرية الصومالية أغلبها هو تعلم باكرة وأي كم بديهين الأشراف أو بلكي برهسة قبلهم الحبيب بسوء ولا بسين دبلغ laftigooda oo hadda dhisan oo aan loo sameeyay xuduudo waxyaalahaas caqabadahaas baa dawladda Soomaaliyeed maanta hor taagan sababteed beesha caalamka iyo Soomaaliya oo isu yimid waxay go'aan ku gaareen in 4.5 maanta Soomaaliya wax loogu qaybiyo 4.5 marka waxa ka hor yimid oo diiday madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas waxaan leenahay marka 4.5 Soomaaliya mar haday soo raacday waxaan qabnaa annaga taliyada Puntland annaga إيه عبدولي صورة أو صومالي رعاو بانو يعني عبدولي كجوابين مع دولة بكا ستة السياسة وقت عاوة علم الحلوة شيء بينه مو في أدن صوماليا هذا في المنطقة كسرتي وضد أي هيسو إيه اللي كنت أجربه بانو الشركة وقتي أنا ما بتاجر إن قرب التفاف بانو قادمي من الحلوة شيء ما هي صوماليا وحتعلق إلى إسرائيل ومدينه صوماليا إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad u mahadsanyahay sida mowqifkiisa u cadeeyay haddana insha Allah taala waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweeyno siyaasi weyn oo caana Muuse Xaaji Abeys oo aad taqaanaan siyaasi caan oo la yaqaan oo runtii reer Puntland wax badan u soo shaqeeyay wax badan la sameeyay ummadda Soomaaliyeedna runtii magac iyo sharaf ku leh runtiina aad insha Allah taala afkiisa ka maqli doontaan runtii ragii Puntland dhisay kana soo shaqeeyay waxna ka soo qabtay ahaa هذا الموسى كسر له فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الإسلام تفضل. وإن السلام يا سلامة الإسلام كأيام يكون سلامة. كلن كان gabdhaha iyo marwooyinka iyo mudanayaasha isugu yimaadeen inaan ka soo qayb galo igu casumay waa ku mahadsantihiin waxaan u malaynayaa haddii aanan qaldanayn idinka ay sixi doone inay dadka halka isugu yimid ay yihiin reer Puntland ma run baa mase waa beentay كانوا كي قلت العلمية ووقع كي قال أنا ما حدق لي فما كنت حدق لي واحد كان ويدين ثلاثة اللي صارت وما هالسنتين كانوا صار كي قلت العوايد بكر وما هالسنتين
waxaa la ii sheegay allah u naxariistay sayid maxamed marka uu caroodo wuxuu dadka waxaa lagu dejin jiray oo uu ku xasili jiray loo lagu oran jiray dara lagu deg sayidii dara lagu deg dara lagu deg hadda dara lagu deg idinku hadda reer Puntland tatiin dara lagu deg waa la leeyahay Soomaalidii hore waxay oran jirtay miyir waxaad ku weydaan iswaal kuma muhiimtaan miyir iyo wada tashi iyo isla qodax bixin iyo xagee ka balowna iyo xagee bay ku maqan tahay iyo xagee bay inoo ka dhowdahay waxyaabo badan in la isweydiiyo ayaa fiican gobol oo annagu aan ka tirsannahay oo annagu aanan ku midaysnayn caawa waxay u degan tahay reer Puntland 4.5 inaan taageersannahay inaanan haynin haddii aan hayno in 4.5 wax ka bedelan hadday maamulkeenna hayaan oo ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigayaan oo diyaarsan oo 6 bilood lagu samayn karo waa soo dhaweynaynaa gacan siiye dadka Soomaaliyeed waxaa la dhisay 4.5 ilaa dawladda Maxamed Siyaad la soo dhisay waxaa la ilaa dawladda Cabdullaahi Yuusuf la soo dhisay waa lagu soo shaqeeyay maanta maxba meesha la maray 4.5 baa lagu gaaray Puntland 18 sano jirta 18 sano Puntland jirto hal meel laga codayo ma taalo hal qof oo leh ma taqaanaa car ID ma lahan hal qof oo leh ma taqaanaa system shaqeeyo oo ma taqaanaa dadkii la tiro koobay ma lahan Soomaaliya oo dhan ma lahan haddii maanta la yiraahdo hal la orayo deegaan hal la qaato waxay u baahan tahay 2 sano 3 sano oo soo socota dadka Soomaaliyeed lama tiro koobi karo shabaabka meel walba haysta meel walba waxa degan ma taqaanaa qabaa'ilada haysta maamul goboleedyadii kale Soomaaliland lama hayo galmudug bari ma taqaanaa dagaalada ka socda wadda koonfurta Soomaaliya Kismaayo ma aha intii kale waxa haysta shabaab haysta see looga gudbaya 4.5 arrintaas macnaheedu inaan jecelnahay 4.5 ma 4.5 idima jecla cid soo dhaweynaysa ma leh laakiin maxaa hal haysaa hadday macnuhu tahay waan diiday dadii kaliya wax ma diidi kartid anaa reer Puntland baana reer Puntland 600 qof waxa la isugu keenay liir 4 magaalo la keenay Puntland 4 magaalo ma garowe gaalkacyo iyo maaha ma taqaan meesha la yiraahdo لح بقول لنا Puntland maaha Puntland taana waan ka warqabno 600 hadda adeysay oo Puntland 4.5 waan diinay oo Soomaaliya oo dhan rabay isbaarada hadda in loogu dhigto waa 600 shaqaale ah bay ruuxa duwal ku jira way arrinta laga yeelayna marka annagu gacanteena ku duminayna Soomaaliya reer Puntland waa dadkii dhisay waa hooyadii Soomaaliyeed way hooyadii Soomaaliyeed ka yeelayna marka in annaga dadkeedii ah oo aysan la tashanin inta go'aan iska gaaraan dad kooban inay yiraahdaan yeelayno ad waxa yeelay Jubbaland baa yeeshay galmudug baa yeeshay waxa yeeshay ma taqaanaa ay sheegeen maamul goboleedkii kale baa yeelay dadkii Soomaaliyeed baa yeelay haddii maanta la hayo wax ka duwan 4.5 oo bari lagu shaqeyn karo soo taageerayno laakiin haddaanan haynin anaa diiday ma shaqeynayso Puntland waa doorasho weyn oo dadka ka dhaxeeya qolo kaliya waxay doonto ma samayn karto waxay doontana ma saaran karto annaga reer Puntland haddaan runtaan isu sheegin haddaan been isu sheegno haddaan dowladdeena rabno waxay ama ha faldanaato ama ha saxsanaato haddaanan rabin inaan saxno oo aan iska saxrino haddaad soo diidan tahay sida hadda Cabdiweli iyo tiimkiisa u shaqeynayaan 20 sano kale ku sii jirayna 4.5 reer Puntland bari waxa ka socda waa la socotaan mudug waxa ka socda waa la socotaan reer Puntland iskuma aada waa in la isku aadiyaa waa in mataqaanaa laga wada hadlaa masiirka Puntland dadka oo gooriya masiirka Puntland ma gaari kara wax doonaan ku samayn karaan arrinta marka macnaheedu maaha inaan 4.5 jecelnahay dadka ay soo fahmaan baa qoraa 4.5 ka annagu maanta aan taageerino oo aan dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa u yahay war 4.5 waxaad ku soo shaqaysanaysaa 12 sano la soo dhaafay
dhowr iyo tobankii sano dowladda federaalka oo cabdiweli uu ka mid ahaa oo uu ka soo shaqeeyey cabdiweli muxuu soo qabtay muxuu ummadda soomaaliya 4.5 markuu meesha joogay uga badbaadin waayo oo ugu sameyn waayo system marka anigu haddaan meesha joogin macnaheedu waxa waaye 4.5 waa leeyahay wey haddaan joogana waa jeclahay wey haddana cabdiweli baa mataqaanaa ka soo tegay cabdirashiid baa ina ay sharmaarkaa hadda jooga ina ay sharmaarkay markuu berri ka soo tagaas noo fadhii doona 4.5 mar rabo waxaasoo la ururiyey dadka reer puntland way fahmi karaan waxaas waxay garan karaanna weeye haddana insha allahu tacaala waxaan kusoo dhaweynayaa keliya intaas waxaan runtii u sharaxay waxay ahayd war 4.5 annagu ma jeclin laakiin wixii lagu bedeli lahaa ma hayno waqtiga ka dhiman in dalka la dumiyo oo aan maamul loo samaynin oo baarlamaanka la kala diro oo al-shabaab siduu hadda adeer sheegay macnaheedu waxaa waaye haddii 4.5 la qaadan waayo dowladdaa meesha ka baxaysa sistamkaa meesha ka baxaya kadib markaas al-shabaab loo imaanaya adeer fakarkiisa waa nin odaya waa nin soo dhisay wax waa nin soo shaqeeyey wuxuu ka hadlaya midnimu ka hadlay waana ku saxsanya inuu midnimo ka hadlo in 4.5 laga gudbo waa ku raacsana waana ku saxsanna laakiin goormaa laga gudbaya adeer waxaa jeclaanaa inuu noogu daro markaas waxaa ficnaan lahayd masaradan kaga baxaynaa mise 6 bilood wax banaana cabdiweli iyo ragga taageersan midna ma hayaan marka hadduu alla waxaan hawsha kusoo gudbinaya hadduu alla usoo gudbinaya sacdiye salaad waan rabaa hadduu alla idmo in ay mataqaanaa iyadana kelimad ka tiraahdo kusoo dhow sacdiye السلام عليكم waxaan anigu mahadcelinayaa dhammaan dadkan caawa iyadoo qabow jiro oo baraf jiro ka soo qayb galay shirkan quruxda badan aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaan inta fadhida kor inkastaan jeclaan lahaa dad badan inay iga hormaraan laakiin de magacay waa loo yeeray anigu waxaan ahay reer puntland dadka qabanqaabada shirkan wax kalena waa ahaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo kale meediyaha oo dhan oo caawina lawada jooga waxaan u mahadcelinayaa dadka iyagana caawa dad badan baa soo socda inaynu sugnana way ahayd laakiin kale waa iska sii wadanaynaa waxaan rabaa inaan ka hadlo in yar oo ah caawa waxaa laga hadlayaa 4.5 iyo meeshay ku aadan tahay staynu nahay reer puntland waxaan gacanta ku hayaa dastuurkii soomaali ee puntland oo 2009kii la sameeyey 4.5 na waa ku horreeyey puntland waxaan ognahay 4.5 waxaa la sameeyey 2000kii shirkii carta waxaan u malaynayaa ilaa iyo 2000kii ilaa iyo maanta aynu joogno oo loo socdo 2016 waxaynu kusoo jirnay waxa weeye 4.5 marka su-aasha meesha taallaa waxay tahay 4.5ka reer puntland markay soo qaadanayeen waxaa joogay cabdilaahi yuusuf madaxda hadda joogta puntland ka talisa way ka wada talinayeen wayna soo qaateen hadda meesha lagu diiday waa miduu hadda warbeera sheegaya waryaa joogay ma waxaa joogteen oo layna kala tashaday 4.5 ma qaadanayna cabdiweli oo yiri baynu aragnay laakiin puntland waxay leedahay isimo badan waa qadaa'il isku tegay puntland wuu ka horreeyey dastuurkan maanta gacanta ku hayo dastuurkan waxaa ansixiyey oo sameeyey faroole marka uu faroole uu sameynayey puntland waxay ku jirtay ku-meelgaar weligeed kama bixin maxkamad ma laha dastuuriga puntland dad aydiyala ma jiro gobollo laga codeeyo ma jiro madaxweynaha hadda haysta gaas waa la wareysta waxaa la yidhi gaasow 4.5ka xasee u codayseen wuxuu yidhi gaalkacayo iyo wuxuu yidhi mudug nugaal bari iyo baran ayaa codaysay oo 600 waxaana caddaan ah oo aynu wada ognahay inaysan ahayn 600 aysan codayne garowe in madaxtooyadeeda ay intay waraaq ku qorteen oo la tegay system cabdiweli iyo dowladda dhexe ay isku soo diideen inuu intuu meel la soo istaago yiri 4.5 baan diidne 4.5 waxaa la yidhi maaligii la samaynayo waa xaq maahan oo hadduu xaq ahaa uusan xaq ahayn marka hore horta xaqa iyo xalka yaa horeeya idinkeeda weydiiyey xaqaa horeeya xaqiina 16 sano oo maanta hadda lagu soo jiro xaq la-aan baa soomaaliya ku socoto oo dhan midda kale waxaan rabaa anigana halkaan ka caddeeyo reer puntland markay hadlayaan always waxay dhahaan
international community AU IGAD ayaan u sheegaynaa waligiin idinku ma aragteen international community iyo IGAD oo reer Puntland siyaasad xumada 3.5 ay ku jirto iyada soo dhexgalaysa ka hadlaysa waligiin ma aragteen waa maya 18 sano Puntland Center Puntland waa qabiilo isku yimaaday 18 kaas hal jifa haysata oo beeda sheegaya halka jifa oo haysatana AU international kama iyo kaliya wax ma maqlaan horta su'aal baan u qabahay waxa anaga rabnaa hadaa reer Puntland nahay 3.5 ka marka hore la saxo madaxweyne Cabdiweli Nuur Dameer kumaanta inoo jooga intayna 4.5 ka u gudbin aniga waxaan leeyahay 3.5 dhibaatada ugu weyn oo Puntland taala waxba lama weydiin 600 kol anigu reer baan ka soo jeedaayo ismadaydu kuma jirna hadii idinka ismadiina way been idin sheegay damoobi laakiin anigu ismada aan lahaa kuwa loo yeerayna maaha aqoon-yahanada iyada looma yeerin sidee aan marka u raacaa 4.5 baa badan 3.5 ka Puntland anigu waxaan ahay reer Puntland waxaan ku dhashay garow oo ku koray inta ku soo leekaaday ama rumaysa ama rumaysanina hataa 3.5 hataa kuma jiro markaan wax ka waayay oo aan aragnay inaan reerkii dhamaa oo u soo dhintay oo dhibaato kasta u soo maray ayaan waxaan tagnay Carta markaasaan 0.5 ka Muqdisho wax ka raadsanay wiilkayaga boosaas degan oo reerkaan ku soo jeedo iyo kan gaarkacay degan iyo kan garow degan xildhibaanada waxay ka raadsadaan Soomaaliyeed marka anigu waxaan leeyahay reer Puntland inta gadaal isugu noqotaan Cabdiweli Nuur Dameer ku jooga shalay intuu ka tagay maalinkuu tagayay oo Puntland tagayay Cabdiweli wuxuu ku hadli jiray waa ogeeyay wuxuu ka hadli jiray cadaalad wuxuu jiray professor baanahay horta cilada haysto Puntland baa Cabdullaahi Yuusuf cadda ka liitay caddana farola ka sii liitay farolana gaas baa ka liitay oo wallaahi ya Puntland cadaaladnimada ay ku jirto iyo 3.5 ka 4.5 aan ka dooranay 4.5 waxaan ogahay inaan u soo laabtaan 4.5 hal qabiil oo ka maqan oo Soomaali weyn ma jiro 4.5 everyone oo Soomaaliya 4.5 ka mid yihiin marka Cabdiweli ya inta la socota ilaa normaal doorane haday 4.5 naga baabiyaan haday loo wadaan ilaa aan ku dhaariyay ma 18 years 3.5 Puntland baa waliga taagnaanayna anaga waxaan raacsanahay ummadda Soomaalida oo dhan 3.5 kaas 4.5 Allah naga saaro dawladda cadaaladana Allah noo gudbiyo Xasan Sheekh madaxweyne ka yahay hataa isaga bay ahayd inuu Puntland soo faragashado dad baa waxay leeyihiin qaraxda ka jira iyo balaaya ka jirta Muqdisho waa loo wada leeyahay qabiil koonfur aan degin oo aan Muqdisho wax ku lahayn ma jiro waa marka runta loo hadlo laakiin Puntland dadka u dhashay hal xabba kuma haystaan hal reer baa haysto jifaa oo 20% Puntland ka 80% waa ka qatanaa Puntland waana ka wada qatanteen inta aan ku hadlaynana kama wada hadli karno marka waxaan soo dhaweynayaa anigu 4.5 insha Allah 3.5 Allah naga saaro assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh سعدي عاد ما تصنتهاي وحقال بنتلانا سفي عنا وقبت بنتلانا وعك الصعدة وجعلنا بنتلانا بواقد هذا وجعلنا لها إن متقانا وحيابها خلط الله الصحة إن متقانا لو قدبو إن متقانا لو قدبو كنت لو قدبو ومعنا والبدأت جروب الجونية هو قانا لجارية كيجي وعلى يسوها يستا Cabdiweli keegi waa la isku haystaa taa saari mayso go'aanka bixinta buu gaari maysid haddana waxaan ku nasanaynaa daaciye Maxamed Jaamac Faarax daaciye oo gobol qiimo badan caawa halka loo soo jeedin doona ugu soo daaciye daaciye waa taqaanaa waa odayaashii reer Puntland waa odayaashii gobolka Mudug ka soo jeeday waa ragga caanka ka ahaa arrimaha gabayada iyo arrimaha dhaantaha ee gobolka Mudug daaciye soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدريان يقولوا يوالي سلامي.
وأول كو 4.5 كان waxaan ku haystay wasiir iyo jab ku haystay hadda hadii loo soo dhigtay dib baa la taagan ayaga la ku heli jiray waa hal iyo jab ku heli jiray hadii gobol la yiraahdo gobolka deganaan gobolka baxay waaya meesha soo dhigay wali galay inuu wala wacshan بسم الله الرحمن الرحيم وأستكف من بركة إباس بدريان يدروين وعنكم سلام يا سلام سلامتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل واحد كلمة يعني إذا فن تعويض بل فن تعويض بركة هذا ودي فصل هذا هو فصل طبعا إن الفريق والمورا فالب عندي فالك مكاني ويربان فارس كواهي حتى فلكي نوضبا فالب حياي حتى فلكي نوضبا فالب حياي فلك عودي حاجة تنوى فلك بياي فراعرتني موغتي وفوشتني ويدي يورك ويشوف بيدي وكسيفته وانت فايفكا كوري من الفقراهي القصر كوري يا رب وعيتنا وانت فايفكا فوزبانوري بين الفقراء فنك عودي حاكمة وفلقوني فاعرتني موغتي وفوشتني ويدي يورك ويشوفني ايدي وكسيفك انت فوشا موغتا دالتكو في عناطو انت فوق شيء مغطى دارتكم في عناطو عرض المانطة من شيء فضيها فرني كوكينا عرض المانطة من شيء فضيها فرني كوكينا فرقها كويلي كان في منك الموضوعا قلت فوقك فيسبروا لي من الفقراء وضدك هتميلوا ذكوري بحاجة ذا اللوع إلي وضدك هيزرعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يشكل يا ميلوين هذا سوى 0.5 كان كل ليلي 0.5 كان كل ليلي هذا إن شاء الله تعالى وحن كسر دويننا بدنا كمان بالله وحن كسر دويننا يا عبد الرحمن هذا وحن كسر دويننا بقر حسين أحمد علي وحن كسر دويننا طالع إنه gobolka uu soo noqonaya banaanka u baxay haddana insha Allah taala waxaan ku soo dhaweynaynaa Sultan Abdi Shakur oo xildhibaan hore ahaa Sultan ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز waxaan mahad u celinayaa dhalinyarada soo abaabuleyna sida wanaagsan soo abaabulay wanaagsantii marka ugu horeyso. waxaan kaloo ku faraxsanahay maanta inaan arko dhalinyaro Soomaali mutacalimiin oo ka hadlaya arrimaha Soomaaliya. waa wax lagu farxo. waan soo dhaweynaa arrinta maanta taala waxa 4.5 markii hore ma aysan xaq waxay taxal waxaana kamid ahaa odayaashii oo Djibouti kusoo suubiyay kamid ahaa 4.5
حق دمائهان لكن حال صوماليات حكومة بنتلاند إنها مانتا دي 4.5 وخلت وحكى لنا معها أن ديدني محق بدلنا مركو هاريس من نوسو بيان سبيل من نوسو بيان كابا دقالة من نوسو بيان شرعي ونكسي بنتلاند شرعي مانتا كمجر دولتها هذا حكومتها هذا بنتلاند كتلسة 3.5 أي كتلسة إنها وكم قرنها أخذ معها dadka dhisaan ku jira waalidiintii baa lacag badan geliyeen iyo xoog maantana waa ka maqanahay waxaan u fadhiyey markii la dhisay 4.5 nalooma yeerin nalooma sheegin mana ogi meel naloogu yeero nolnahay 4.5 baa maanta diidana waa joojinaynaa oo nala tashta qof nala tashta oo noo yimid ma jiro marka waxaan weydiinayaa shacabka Soomaaliyeed Puntland ma dad yar baa iskale mise inagoo dhan ma waysan ahayn inaan arrimaha Puntland aan wada wadaagno kulligeen ma waysan ahayn dhaqaalaha Puntland inaan kulligeen wada wadaagno anigu waxaan leeyahay xaqdara ka socoto sharci xumaa ka socdo ilaahay waxaan ugu baryayaa in Puntland iyo shacabkeedaba xaqa tuso marka ugu horeysa waana ka xumahay arrimahan maanta la wareegayo waxa qaban jirna waxaan kaloo ku darsan lahaa Fikale Cabdullaahi Cabdullaahi baa arrimaha ku darsanaya oo idin hadlaya asaga isagoo ka mid ah dhalinyarada Puntland usoo dagaalantay fikradiisu dhibi qabaa السلام عليكم مرتشرف طبعا شاسلتني ومطامئ المروي بله hortareeto Puntland waa u dhalan waan ku qanacsannahay in Puntland u dhalan ahaano laakiin kuma taageerayno wax cadaalad xumo ma ku taageeri karno Soomaali baa kala maqan in aan hadda bilowno annagii Soomaali in isku raadino lagu dhisay Puntland dadka annaka ugu dambeynayno baxayna waa wax ayaan ka aad loogu siiso wax loogu dulqaadan karo maamulka Cabdiweliina ma aha dadku Soomaali baan nahay weligeena kala sadbusan jiray laakiin wax naga dhaxeeya jira oo aan meel lagu kaltan karin calankaas buluuga ay Soomaaliyada mid lagu kaltan karin ninkii raba inuu ka baxo dhammaantood saaba Soomaali ma raba laakiin ummad Soomaaliyeed oo ummad oo caamala oo aqoon leh oo saraakiil leh oo siyaasiyiin leh hal nin inuu yiraahdo aniga diinjeeriya ibaaxa oo waxna badaa wax inta qaadan karnana ma aha kala sabursi Soomaali weligeed uu ka jiray wuuna ka jiri doonaa waa wixii aan u dhalanay geel baan kala dhacayna shalay waa u dhalanay ilaahay baa noo umay ma iska bedel karnaa ma aha laakiin Soomaalinimadii in laga tago oo lagu mamasiyoodo 4.5 مرة أقول أسف 4.5 كعكسار ماشي والبطلانة تدفع إليهم 3.5 أنا ما أعرف 3.0 ما أعرف والله ما أعرف و 3.0 مرة ماشي شلي أنا تاجرنا ولي واحد سكب الدري وأنا قال على وسط هنا ما أعرف اسكولات متجرو شرعي وتكن متجرو دستور متجرو محكمة متجرو وهذا حاجة واسعة بس جيت مصر وسوت تاجرنا هاي شرعي على الجديد وهم تفرّوا الأيديك إن تتكلم تركوه وعضل ولا خاطر يعني كسر خاطر ولا شغل تعمله وأودي سسمع الله وقصد كلامك مانت وحلو قصد كلام معها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad u mahadsan yahay ninka dhalinyarada hadalada qiimaha iyo qaayaha ka soo jeediyay haddana hadduu alla idmo waxaan ku nasanaynaa hadduu alla idmo runtii dad badan baa waxay ka dhawaajiyeen in aan la hadli karin in dadka reer Puntland aan hadal loo ogolayn inaysan fikirkooda sheegi karin waxyaabahaas waxyaabo badan waxaa jira kaliya maaha Puntland kaliya beelo badan oo Soomaaliya ka jirta arrimahaasna arrimaha saxaafadda weeye hadda marka hadduu alla idmo waxaan rabnaa si aan saxaafadda anagoo reer Puntland wax uga baranno
waxaan rabnaa bal cali xaraare oo aad taqaanaan oo ah wariye caana oo ka soo jeeda wariyaashii radio muqdisho BBC Voice of America oo runtii aad taqaanaan shaqooyinka ummadda Soomaaliyeed u soo qabtay ayaa rabaa hadduu alla idmo bal inuu annaga reer Puntland iyo dhammaan Soomaali weyn inuu noo sharaxo war waxa saxaafaddu ay tahay iyo duruufaha saxaafadda maanta haysta in wax laga yiraahdo ku soo dhawow cali xaraare ila siiyana gacan siyaasadda Soomaaliya waxaan uga hadlay waa siyaasad dabaqsan oo isku jirta oo murugsan oo dhinacna loo raaci karay waxaa la yidhi nin reer miyiga u ahay oo Soomaaliya 10 nin oo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo u ololeynaya malaha oo laga doorashooyin ah 10 nin laba baabuur baa la gadoomay dabeetana isagoo meesha maraya ayuu la kulmay dadkii oo taahtaahaya qaarna dhigtay 10 qofba xabaal buu qoday dabeetana u aasay dowladda oo maqashay oo tii waxa lagu yiri dadkii halkan marayay ee baabuurta la gadoontay aaw wuxuu waa naasay dhammaantoodba waa la weydiiyey waxa la yidhi oo dadkii miyaadan eeginba cid dhimatay cid nool inay isku jireen marka wuxuu yidhi wallahi markan xabaasha ku ridayay xabaal dheer baan qodayo oo ciidda ku rogayay qaar baa qayliyo ahaa urwa nool ah oo kuwa maxay u soo saari weydaan waa siyaasi weliya rumaysan karaya waxaa kaloo siyaasadda Soomaaliya ku tilmaama anuu maamul hadli maayo iyo gobol iyo mid laakiin Soomaaliya inuu marka isku daro waa laba nin oo walaalo ah waxaan soo qaataa laba wiil oo yar oo dugsi hoose dhigta oo ka habsamay dugsigii ayaa macalinka weydiiyey kii hore wuxuu yidhi maxaad ku soo habsaantay maxaad ku daahday yarkii uu ooyay wuxuu macallin shilin hooyaday soo siisay rabay breaktanka inaan cuno ayaa iga lumay dabeetana macallinkii uu garoosay wuxuu yidhi gal gudaha kii kale ku yidhi adigu maxaad ku daahday wuxuu yidhi macallin shilinka walaalkii ka lumay ayaan ku taagnaa si aan u helin weligii cuno dhow qaatan dabeetana sidii igu wareegayay ayaanu isla habsaanay waxaad maqlaysaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare haysta laba gobol bay haysta dad bay haysta laba gobol ama laba kooxood midna shilinkaasuu ku taagan yahay midna waa ku wareegaya Soomaaliya oo dhan sadbursiga oo maamulada Soomaaliya oo dhan badankooda ka jira oo qolana ay iska kiilanayso qolana ay gaajo u dhimanayso iyana waxaan ku tilmaamaa sheeko ah waa Soomaaliyeed oo dhan waxaa wiil iyo gabadh walaala ayaa cuntada meel la isugu ridi jiray hal sax waa reermi dabeetana gabadha booftay yarku maalin walba uu qayla wuxuu dhahdaa hooyooy way iboogaysaa madax aabihii baa maqlay maalinta dambe ka xanuunsaday wuxuu yidhi xaasiintu la hadlay na waxaad yeeshaa yarkii waa iga baktiyeen midba gooni ugu rid dabeetana gooni baa loogu riday saxankii baa gabadha halkaa la fadhiisatay wiilkii naga dabeetana saxankeeni bay labada gacmood ku cuntay ila waxay barateen baymaysa yarkii baa markaa qayliyey qayladii markaa way ka duwantay tii hore wuxuu yidhi aabow way isboogaysaa buui marka dad badan baa isboogaya oo labada gacmood baa wax ku cunaya waayo intaan kaga baxo dhinaca siyaasadda iyo sidana uu qiimeeyo waxaa dadka Soomaaliya xilligan hogaamiya ay warbaahinta annaga noogu yimaadaan marka ay doorashooyinka gelayaan in laga duubo waraysi aad u fara badan oo ay ammaantooda iyo waxqabadkooda ay ku sheeganayaan markay kursiga fuulaan qofkii yidhaahda madaxweynuhu waxbuu naga khalday waxay jecel inay xidhaan waxaan aad uga xumaay dadka sidaa warkigii soo gaadhsiinaya ee saxafiyiinta Soomaaliyeed ee weliba gudaha Soomaaliya jooga in maalin walba lagu xidhxidho Somaliland, Puntland, Jubaland, koonfur galbeed Soomaaliya, Muqdisho iyo meel walba telefoonada lagu hanjibaa waa la xidhaa hal tusaale oo gaaban baan siinaya nin magaciisa la yidhaahdo Jaamac Dabaraani
ayaa lagu xidhay 2 jeer Garowe Puntland waxaa loo xidhay wasiir baa yidhi u warayso wasiirka faafinta dabeetana uu warayso hawada u geliyey wasiirkii baa dadkii canaanteena waxay idhahdeen su-aalaha adag buu ku weydiiyey inanka ilmuku ma maqli jirteen haddaan kooyaa hadduu xasuustaga dib buu ugu noqo yarkii u xidhay adduunyadii baa qayrisay waa la soo daayay ninkii xidhnaa muddada oo lahaa maxaad u waraystay wasiirka ayaa cabdiweli maxamed cali gaas u yidhi kaalaya waraysaada waraysiguu ka qaaday waraysigii u baxay waraysigaa kadib waxaan eegaya anugu tolo goorma haddana la xidhi doonaa laakiin ilaahay doorkan uu badbaadiyey qof kasta oo Soomaaliyeed oo doonaya inuu war gudbiyo Soomaaliya gudaheeda awoodu ma leh inuu warkaa gudbiyo waa la xidhayaa oo la hanjabay nin ka tegay oo hayo Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Cabdisalaam oo xog hayay fara badan oo shidaalada Soomaaliya shirkaduhu sida u xadaan hayay ayaa tegay Soomaaliya dabeetana wuxuu soo marmaray gobollo fara badan xogtii markuu soo ursaday wuxuu ka bilaabay Muqdisho Garowe Soomaaliya meel walba uu tegay cid waraysto waayo qof kasta markuu tago ila xogta sanaya ayuu yidhahdaa adal haydini markaan kaa qaado waraysiga ama waa laydili ama waa la xidhay dabeetana 2 bilood kadib buu aniga yimi markaasaan waraysigii ka qaaday waraysi aad u faa'iido badan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iiday sida loo khiyaameeyo ayuu ahaa laakiin dadka inay xukuumaad doonayaan in la sheego sida loo khiyaameeyo waayo waxay u shaqeeyaan kuwa ay khiyaameeyaan أنا مرة واحد نكتر على شعب كيجا ما تشيلوا قبل عن تاجر سنة هاي عدة عن ولا شيء قبيل بركة لقاها هذا ومجا عرفتوا مجا استحاد بقبيل كود كنكتان دين الإسلام كل واحد كرتا إن قبيل بقول نقله ميت لا يسوق كرتا قفراسي أو سيد تارك أما البلاد نبرة كلوا لكن إن عيد واحد كويه لا يو أما عيد هو واحد لا يشوف مرة نبغى نلاقي قبيل وحنا نكتر على مدينة الصومالية ومدينة الصومالية وحنا واقعين من تاعي فرق بقديشة بايدابو هرجيسة عدة مالك اللي يقول النساء إيه ذاك الجواب دوتا أما إيه له استوديو عم كل نهاية مجال مليابس وحن قادر نسوي لويليا عد كسته أو ضمن عد كسته أو هايسة حق درك على الليسة حق ذاك على الليسة سيب مضح بنام يوم عندنا باقي يوم عندنا عاي وحن كل سوي لويليا عدة كلا قفك كسور كذا قف راسي وحبال مري حقيقي دبتاهي وحن دفاعي قبل هوا قبل الحلم أو وحن شيء كنت أما حقيقي جدا إسمع الوصول وين وحنو شقينا وحنو شقين دوران إنت نور شيء كهذا ومدة الصومالية إيما كلا سكيسو مقدش أنا لا يقدر كريم قال كعيان لا يقدر كريم الله يعدان لا يقدر كريم وحن لا يقدر كريم بايدابو وحنو سكب كبيرة إذا كان بعض دقيقة أنت عديدو قالتين ران لا يهاتين إن أنسو تشيريو دتك مسؤولين تان كتر مالو Soomaaliya maanta hogaaminaya in ay tacadiyada iyo xariga ay ka daayaan dadka wararka u soo gudbinaya shacabkooda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa oo kale inaan anigu cidna u joojin doonin oo aan cidna ku eegi doonin in naxariista oo ah Muqdisho iyo Baydhabo iyo Garowe iyo Hargeysa kana ku xiga iyo kana ku sokeeya ilaa inta dadkaygu ay ooman yihiin oo xaqiiqda ay ka fog yihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لو حسين دونا هتوان لأنه فلان كان هيجاني وما أنت أسأل ربه الله ونرجوك فليتفضل هيجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان dadka مسؤولين متشرفتا رجع عوش بسواء بابلي متشرفتا يجينا هذا ما أنتم حنك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وقت بدنا نبيه but I was once upon a time. وحنا هاي خاتم state of Somalia بكسر كذا قل لوان مسحين وراها يو بدلان ويشيلان لكن اسمه ما بالمنهن
waxaa si caawa halkan aada nooga markhaati furay sacdiga garow gabadhii halkan ka hadlaysay aad nooga salaamaya waxyaalihii aanu kaga guurnay puntland walaalahayo infact way caddaysay wax kale oo ka fara badan oo dee qarsoona way jiraan oo aan la doonahaynba in halkan laga sheego laakiin cadaalad darradu rag cadaalad waayey sidii cawsha kayaac bini-aadamku waxay ku wada joogaan waa afgarasho iyo cadaalad haddii la waayo nin waliba wuu danaysanaya ummadda waxaa dantaan muhiima labada walaalaha ay hadday isku dan noqon waayaan waxa weeye dantu way kala karaysaa taana waxaa keenaya cadaalad darrada puntland marka laga hadlayo deegaano fara badan oo maamul puntland la yidhahda uusan ka jirin baa carabka lagu saa anigu ma garanayo ujeedada laga leeyahay maamulkii puntland meesha kama jiro boolis kama joogo ciidan kama joogo haddana magacii waa la sheeganaya macnaha waa wax lala yaabo arrintan 4.5ka horta soomaaliya riwaayad baa ka socota riwaayadana qofba waxba ku jira waxaad arkaysaa in lagu leeyahay hebel oo ku jiraya kuub sacdiye cali oo ku jiraysa baylood laakiin dee sacdiye cali inaana galooda han way noognahay laakiin way ku jiraysaa cabdiweli iyo xasan sheekh waxba isma diidaan anu salaamsanahay waxba isma diidaan laakiin cabdiweli wuxuu ku jirayaa 4.5 ma ogli taasi waa game politica hadhow berito waxaad arkaysaa anada tuwakis iyagoo wada joogo oo wada qoslayo oo wada socda baad arkaysaa soomaaliya oo dhan baa horta gameka noocaasa baa ka socda marka taa halkaasaan kaga baxayaa arrintan puntland waxaan jecelahay in la isku ixtiraamo oo rag badan oo hadda halkan ka hadlayay baa waxay magacaabeen gobollo fara badan gobollo aanay puntland joogin oo aanay ka tagin bay magacaabeen marka waxaan jeclahaa anagu puntland waa ixtiraamnaa waana walaalahayo laakiin deegaankooda ama at least inta ay ka taliyaan administrationkoodu ka jiro inay ku ekaadaan baa fiican calankii puntland ee ka taagnaa laascaanood rag baa ka qaaday puntland kama hadan may soo ceshay xeerigaawa uu ka taagnaa kamay hadan waa wax aada loo yaabo madaxweynaha somaliland baa wuxuu yimi laasquray uu ka noqday xeebtuu soo maray dadweynaha uu soo dhex mari kari waay isagoo ka baqaya dadka deegaanka degan oo puntland taageersan xeebtuu kusoo dhuntay wuu soo maray faris magaalihii magaaladaa lagu dejiyey wuxuu yidhi iskuol iyo waxbaa dhisaya oo uu dhuntay puntland maxaa ka dhacay waxaa la yidhi meeshan laasquray waa in puntland wafd u dirto waa in la tagaa waa in madaxi tagto cabdiweli wudi inuu tago hadda dadka halkaa jooga hadduu cabdiweli tago waxay kusoo dhaweynayaan ubax ubax bay kusoo dhaweynayaan laakiin ma tegi karo marka waa inaad gameka siyaasadda fahamtaan laakiin cabdiweli markuu hadlayo qardhow laasquray waa puntland markuu hadlayo laakiin ma tegi karayo ma tegi karayo buuhoodle hadda waxaa jooga maamulka somaliland iyo maamulka khaatuma isku haysta miyaad aragtay wax puntland oo ka hadlaya wasiirka puntland oo ka hadlaya miyaad aragtay madaxweyne ka hadlaya miyaad aragtay somaliland iyo khaatuma isku haysta laakiin marka mediaha laga hadlayo madaxweynuhu gobolka buuhoodle waa puntland baa la leeyahay marka anigu waxaan ka jeclaan lahaa haddii aan la raadin kara haynin puntland oo weli cadaalad darradii intii naga hadhayba ay sii kala qaylinayso oo cadaalad darro kasii kala tirsanayso inteedii hore waaba iska sii fogaanaynaa dad badan baa markaa aan sii fogaanay
waana arrin kollay burbur ku dambaynaysa haddaan la daba qaban haddii weli waxyaala u ballan qaadi baa jira markii uu kambeynka ku jiray in puntland cusub la samaynayo dadka la isu keenayo shirar wixii haddana iska wada baabay waa waxa uu iska kambeynkaadi marka anigu waxaan markaa kusoo gabagabeynayaa puntland anigu sida ay hadda ii muuqato ma aha puntlandtii aynu naqani ma aha waa puntland siyaasadaysan oo puntland hoos usii socota berigii cabdilaahi yuusuf markii puntland la sameynayay ilaahay ha naxariistay labada ninba waa dhinteene baa cigaal baa la wareystay b b c laga wareystay way ku duuban tahay baa waxaa la yidhi ka warran waxaa la dhisayaa maamul agtiina ah oo iyaguna maamul noqonayo bal ka warran marka cidi madaxweyne lama doro marka cigaal wuxuu diidanaa cabdilaahi yuusuf soo doro wuxuu yidhi haddii cid aanu is-afgaranayno ay qabsato waa wada shaqayn karnaa waana wada hadli karnaa cid aanu is-afgaranayno isagoo markaa cabdilaahi yuusuf ka baqay somaliland markaa puntland hadda waxay noqotay wax la afgaran karo lala hadli karo daadis waa dhulkeedii loola wareegay dad la afgaran karo la fahmi karo bay noqdeen daadis waay dhulkii ay ka taliysay ee calankeedu saarnaa loo dejiyey marka waa su-aal maak puntland horta ma jirtaa raalina iga ahaada annaga su-aal maak baybataa naga tahay marka waxaa weeye nimayo khayr baan idin rajeynayaa dadaalka intaa ka kordhiya midnimadana ogaada midnimada soomaaliya waxaan kaga tegayaa midnimada soomaaliya hadday u dhimanayso 4.5 midnimada soomaaliya dee baabiin mayno wixii ay ku kacayso midnimada soomaaliya lagu helayo annaga waxaa nalagu hantaa midnimada soomaaliya unbayba isaga jibaysan yihin waaba nalagu hantaa marka idina haddaad iminka nala ilaalinaysaan haddaad idinkuna iminka nala qaadateen midnimada soomaaliya in wixii maaragtay lagu taagi karayaba lagu taago dee way igu soo dhaweynayna aad iyo aadna waa idin sanaaday aad u mahadsan yahay maxamuud haddana insha allahu tacaala waxaan mikrofoonka siinaynaa x xildhibaan canab jaamac shire oo ku magac dheer canab indhacade soo dhawow
soogiya sanaag daraadoo tashilahaanta aysan la tashan daraaddeeda ay u noqoto waxaan u malaynayaa puntlandna tii oo kalaa haysata maadaama dadka deegaanka la-ah oo puntland la dhistay oo reer puntlandiga aysan iyadoo la tashan dad gaara ay iska dheheen 4.5 ma habno waxaan u malaynayaa hadda waayo aragkuna aysan noqon wixii soomaaliya ku dhacay oo kale tii oo kale inay qabsanayso baan u jeedaa waxaa weeye marka taas waxaa weeye horta la tashi la-aanta maadaama aniga beel baan kasoo jeedaa beeshaydu mudug iyo nugaal iyo bari waa wada degtaan saasay taana isinana waa leeg aqoon-yahanina waa leeg waxgaradna waa leeg wax tixgelin ah oo nalaka siiyey in 4.5 aan diidnana ama nalakala tashadana ma jirto waxaan kaloo ogahay boqolaal lamida oo aniga beeshayda lamida inay buuxdo oo inay badan tahay oo dad fara badan tahay hadda waxaa la duwaagii la tag bartay kadib waa ku ceeb wax badanaa puntland waxay u baratay in maaragtay waxyaalo intay iyagu ay iska keensadaan inay dadka puntlandiga la-ah ama dhalasho ahaan ama deegaanka la-ah inay dhahaan war waxaan shidadooda intii maaragtay ay fidno noo keeni lahayd nabadaan ka dooranee ha qaateen oo kale bay u barteen laakiin taas xilligii waa dheeraaday sabirkiina waa yaraaday ma suuro